dhibaatada ilaahay idinka dulqaado qofkan habaarana la idin soo habaarina ilaahay meel ha idin dhaafiyo horta markii hore madaxweynaha oran kulli madaxweynaha la doortay weeyaan way ka dhamaatay ma madaxweyne laba maroodi meeshay ku dagaalamaan coos ayaa ku baabaa ee soo shacabkii ma baabiinaysa annagu caruurteeda qoriyaan u iibinayna way dagaalamayaan markay dhintaanna waanu aasanaynaa ma maydhno mana kafanno mana oyno mana tacsiyeedayno sidoo marka soo lama doonayo oo ma wanaagsan inaad isku imaataan oo aad xalkii raadisaan oo dhalinyarta dhamaanaya oo dabka aad ku shubaysaan aad ka joojisaan dabka ay ku dhacayaan waxaanu leenahay waa dad Soomaalinimadu ku fogtay beeshaawi soo ma wanaagsanaan lahayn intii dadkiina la barakicin lahaa la dili lahaa la dhaawici lahaa magaaladana dhulka lagu dari lahaa in aad tiraahdaan dagaalka joojinaynayo sidaas Soomaaliland ayaan ku raacinayna dhaxan soo kama wanaagsan burciya Hargeysa dumi doona ciidamo u dhashay Djibouti u dhashay ayay jamaahiirtu soo gudbinayaan oo dagaalamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن دمانا خيارتا هودا نقل حريرتا كون سودا ودا شاعية تي في برامج كان وحنكو إيجي دوناه دقالكا لا سعانات وحنا استوديوها شاعية وكل يهي مقالة كولومبوس وهايو إنو قصو بوغدي عبد الله محمود عبد الله أولو يقانو عبولي oo kamid ah odayaasha SCC ee magaalada tan ee Columbus Ohio marka hore aan ku soo dhaweeyo stuudiyaha soo dhawo وعند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند وحي وريه الشاعية وأنا مهد علينا يا أديك يتيفي كاك الشاعية إن أدبان كاغم هاد علينا إن النصاب وقتو سيدو كلنا وحن دونا يا إن أن كاوريستو حالده وجودا دنبيي SSC أما الله سعانو دقالك أو كسعدو إن وجهورين محاور أد كهيسا بعدما أد كمتهي أضياشا SSC مقالة كنول بسم الله الرحمن الرحيم سيدا دكتور شاعيو دقال كان وحو مريا اسبوعي لبعض اما مالنتي افريت تبناد ايو مريا بلو iyo ilaa imin kana isbedel fara badan ayuu soo maray waxay ugu weynaan maanta u yimi studio-ana waa inaan u mahad celiyo beesha Garxajis oo kamida beelaha Sheekh Isaaq ama SNM-ta beelihii lahaa beesha ugu tunka weyn oo bayaan maanta soo saartay inaanay dagaalka qayb ka ahayn waxaan ugu imi halkan inaan uga mahad celiyo go'aanka taariikhiga ay qaateen ee ay kaga baxeen dagaalka xaqdarrada lagu soo qaaday dadka walaalahooda iyo waliba inaan ka codsado inay ku daraan ciidamadooda deegaanka ku jira inay kala baxaan oo baaqa ay waafajiyaan inay kala baxaan ciidamadooda annaguna aanu ballan qaadno inaanu gudbintooda wal qayb kamid ah isdhiibay waanu gudbinay aanu ballan qaadno gudbintooda iyo amba bixintooda marka dagaalka kuma jirno oo waanu ka baxnay oo naguma filaanayso haddaan ciidamada kala bixin marka waxaan jecelahay inay noogu daraan inay u dhawaaq dheer u diraan ciidamadooda ay ku wargeliyaan inay ka baxaan goobaha dagaalka لكن odayaashaas sidee ciidanka uga amar qaadan karaan ciidanka waa ciidan dawladda Soomaaliland ka tirsan soo lama dhihi karo ciidan qaran weeyaan oo ka tirsan Soomaaliland odayaal shaqulku ma laha hadii see u aragtaan inkaas shaaciyow dawlad ma aha waxaan aad maqashaan ciidanka qaranka la yiraahdo waa wax qabaa'ilku isku darsaday qoryahana way kala leeyihiin ciidankana way kala leeyihiin markooda horeba wayna kala soocan yihiin waana isku jiraan waa heshiis bulsho ay ku heshiiyeen beel ahaan hadday ciidanka qaranka ahaan lahaayeen de annaga markii hore ay natirsanayaan ka midna wax ku lahaan lahayn sida ciidankeegu uga maqan yahay oo deegaamadeeda u joogay ayaa reer walba ciidanka u leeyahay marka iyagu way isku darsadeen kuwoodiba isku darsadeen marka ciidankoodu kuma jiro ciidamada kale ciidan qaran oo ay leeyihiin ma jiro meeshan qaran ma jiro marka waa ciidan beelo ay ka kala yimid oo la magac bahay Somaliland oo dawladii kamid ah weeyaan ayaa leedahay ma ahan ciidan Somaliland ay leedahay oo ciidan qaran ah ma ahan hadii aan ku xusuusiyo nin la yiraahdo General Aare oo beeshan Garxajis ka jira ayaa isku dhaceen Somaliland dhammaan ciidamadooda way la bixeen waxay qarnay saldhig ku lahaayeen markii dambe heshiiyeen dib ay ugu soo noqdeen waa wax markay isku xanaaqaan ay kala gaxaystaan markay rabaan ay isku soo darsadaan
ciidan lambar leh oo qorshe leh oo nidaamsan oo isku qaybsan ma jiro marka waxaan ka codsanaynaa waanu la soconnaa waxba iskuma kaaga qarsanaa dadkan waa dadaan u helnahay marka waxaa leedahay odayaasha ciidanka iyaga ay xukumaan oo odayaasha ay u yihiin ciidankooda kala baxeen annaga muhiim waxaa noo ah inay dhawaaqan ay maanta jeediyaan mid lamida jeediyaan oo ciidamada ugu yeedhaan askarigooda maqli waaye ee diida iyagu eed kuma laha kuma eedaynayno laakiin iyaga waxaan uga fadhinaa waxa weeye inay dhawaaqii maanta ay soo jeediyeen ay dhawaaq bixitaan ciidankooda noo raaciyaan askarigii marka askartooda ku jira ee bixi waaya iyagu mas-uulka ma aha waa hagaag odayaasha maanta way hadleen qodobo badanna way soo saareen laakiin qodobada ay soo saareen kumaysan jirin in ciidanka ay kala bixi doonaan ciidankoodina uma yeerin haddii ay dhacdo inay ciidanka aysan kala bixin maxaa lagu tilmaami karaa baaqa ay jeediyeen odayaasha iyo qodobada ay soo saareen bayaanka ay maanta jeediyeen qodob baan ka soo qaadanaya waxay ku celcelinayeen dastuurka Somaliland qodobkaas oo aaminsan yahay dastuurka qodobka Somaliland baa aaminsan yahay dastuurka Somaliland wuxuu doonaha aaminsanaa anagu kama midnihin namana quseeyo qodobadan dastuurka bayaankooda waxaan ka durayaa qodobka dastuurka annaga dhulbahantaana leeyahay dastuurka naqabsan waa dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qabilsan inta Khaatuma State ama SSC aan uga samayn doono annagu dastuur noo gaara waxaan isticmaalaynaa ka dawladda federaalka ifanka Puntland oo aan qayb ka ahaysna nama quseeyo marka waxaan annaga na quseeya inay yihiin beesha garxijiso aan walaalanahay dhaqan wadaagnahay xiriir fiican naga dhaxeeyo arrintan maantana aanu abaal uga hayno iyagan dastuur iyo waxaba ka hadlin waxaan u baahanay beelahaan in ciidankooda nagala baxaan hadday la bixi waayaan waxay la xeer noqonayaan kuwa ku jira aniguna waan ku daayay wiilkayguna waa ku dilayaa wax macno weyn ma keenayso laakiin hadday iyagu baaqa jeediyaan askariga diida goobaha dagaalka markuu yimaado uma tixgelin doono in beeshaasi ay dagaalka ka baxday laakiin waxaan ula macaamili doonaa sidaan ula macaamilo kuwa dagaal ku jira laakiin dadkooda waxaan ula macaamilaynaa haddii ay baaqa fuliyaan askartooda caynka ugu dhawaaqaan dadkooda waxaan ula macaamilaynaa dadka iyaga ka mid a sidoo kale waxaan rabnaa inaan uga mahad celino boqor buur madow oo ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii ku baaqaya in dagaalka la joojiyo in ciidamada la kala qaado in deegaanka laga baxo ficlan si toosa isagu afka ugu dhiftay ciidanka beeshiisu inay dagaalka soo baxaan hadalka cad aanu doonayna waa hadalkaas oo kale boqor raabi baa isna la mid aha labadan nin waa beelaha habar jeclo laakiin miisaankan uu leeyahay baaqa maanta qolada garxijis ay qolada habar jeclo ma gaarsiisna koodu waayo shirweyne ay qabteen kama soo saarin laakiin boqorku araahdiisa shakhsiga ayuu ku dhiibtay inkastoo boqorkii yahay marka qoladan waxaan ka rabnaa inay ciidamadooda baaq u jeediyaan ay ku baxaan oo furmaha dagaalka kaga baxaan waa hagaag dagaalka ka socda Laascaanood waxaa lagu eedeynayaa in qaybiyo kala duwan ay lug ku leeyihiin aan si toos ah carabka ugu dhuftay dawladda Djibouti in ay ku jirto ayaa lagu eedeynayaa oo ay saanad ciidan ay siinayso Somaliland ayaa lagu eedeynayaa arrinkaasi maxaa ka leedahay anigu macluumaadka aan hayo ee ay soo gudbinayaan jabaahiirtu waxay cadeynayaan jabaahiirtu in hubna ka soo galay deegaanka ciidamana ka soo galeen ciidamo u dhashay Djibouti u dhashay ayay jabaahiirtu soo gudbinayaan oo dagaalamaya waxa laga yaabaa hubkan laftigooda qaar aan Somaliland ku aaminayn inuu ku jiro wax weyn uma aragno waayo Ismaaciil Cumar Geelle dhammaan ummadda Soomaalida ayuu dhibaato ku yahay kuwa uu xukumo dhibaato ku yahay waa dad aad u tiro yar dekado fara badan bay leeyihiin laba dekedood waaweyn bay leeyihiin saldhigyo fara badan bay leeyihiin dadkoodii baa qaxooti ahaan Soomaaliya isku dhiibay iyagoo tiro yar dadka uu xukumo ayuu dhibaateeyaa Somaliland laftigeeda dhibaatada uu geystay iyo waxa uu tiray dhibaatada uu geystaa badan dhibaatada uu geystay waxa weeye dowladda military ka socday wadanka Mareykanka la sameynayaan saldhigii Africom berberaa loo wareejin lahaa oo Mareykanku rabay inuu la wareego
dhul qabaa'il ku dagaalamayo oo foodaa buu meeshooda dhan ka dhigay xitaa wixii ay u halgamayeen ictiraafkii ay doonayeen buu ka baabiyey wuxuu ka dhigay dad xisaabaada oo dagaalamaya wax tijaac lahayn iyagu baabiyey annaga wixii wadkood galaa naga dhimanaya hubkan waxa laga yaabaa inuu qaybsamo qayb kamid gacantayada gasho annaga wax weyn niman yeelin laakiin dhibaatada iyagu u geystay hadday fahmayaan Somaliland ayuu dhibaato u geystay waayo geedka dacarta la yiraahdo waa geed aad qodhaad laakiin shinnidu marmar bay malab ku beertaa oo malab baa laga helaa dacarta marka dhibaatada Ismaaciil Cumar Geelle sameeyay taa anaga noo geystay waxa nooga si faa'iido badan tu Somaliland u geystay laayo waxay ku dhawaadeen inay dawlad noqdaan inay Mareykanka dawlad la sameeyaan in Mareykanku saldhiga berbera dego in Afrika oo dhan Afrika ka hawl gasho inay dhaqaale fara badan helaan automatically anagu aan waxaan diyaar u ahayn dawlad nagu noqdaan ba u dhawaatay dowladtuska sababta loo wareejiyay waxa ka dambeeya ayaa leedahay maamulka Djibouti maamulka Djibouti ba boqolkiiba boqol ka dambeeya saldhigiina wuxuu ku nagaanayaa Djibouti kuwanina waxay meeshii noqotay in qabaalka dhulbaantay qabaalka ay saaqstilaan marka sababta maxay tahay oo Djibouti ay ugu dadaashay in la wareejiyo dowladtuska in lagu waxay u wareejinaysaa hadii berbera Mareykanku u guuro oo dego Djibouti ma shaqayn doonto haddii Soomaaliya dawlad noqdo degtana Djibouti ma shaqaynayso sida la ajirgeed in qaranka Soomaaliyeed amnigiisa iyo dawladnimadiisa uu baabiyo Somaliland baabiyo anagana isku kaya dilo markastoo Soomaaliya dhibaato ka dhacdo si jiritaanka iyo riiqitaanka Djibouti baa soo kacaya markastoo Soomaaliya soo kacdana Djibouti baa hoos galaya aan ku xusuusiyo waqtigii uu farmaajo wadanka hayay in adduunyada Soomaaliya la macaamilayso Djibouti laga jeestay riditaankii Djibouti farmaajana uu qayb lixaad la ka qaato kacdoonka isagu waday markii uu farmaajo meesha ka Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweyne noqdayna inuu isagu madaxweyne Soomaaliya noqdo go'aamiyo kala bedelka askarta dhaqdhaqaaqa siyaasadeed qaska wadanka dhimi qasan yahay Soomaaliya aan ku xasuusiyo waxa madaxweyne ka Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya ومدحوينها الصومالي وحسن شيخ محمود لكن سيحي ومدحوينها سي كسي كوريا واسماعيل عمر قيلي اسماعيل عمر قيلي اياك لبا دولدودي كليهين جيبوتي انا ومدحوينه ايي ليهين صوماليا حسن شيخ محمود ايا مدحوينه كيسده حسن شيخ محمود سي هي او كو اهاندا واد نقون كرتا hadii ku hango madaxweynaha igaad buu yimi ismaaciil cumar geele wuxuu yiri Somaliland iyo SSC ana dhexdhexaadinaya haddaanu madaxweynaha Soomaaliya ahayn Xasan Sheekh Maxamuud oo fadhiya sidoo uu yiraahdaa SSC iyo Somaliland ana dhexdhexaadinaya hadduu wadan kale yahay sidoo wadan gudihiisa uu yahay dhexdhexaadinaya haddaanu isagu xukumin Soomaaliya kumbuleed maamulkeeda Ismaaciil Cumar Geele gacanta ku haya qof Soomaali oo dafir kara ma jiro qofkii dood ka qaba aniga halka igu yimaado shaaciye TV Columbus ay soo fadhiisto okay taa topic kale ayaan ka dhiganaynaa laasacanood ayaan ku jirnaa waxaad carabka ku adkaysay in Djibouti ay ka qayb qaadatay dagaalka laasacanood ka socda laasacanood way dagaalamayaan ayaga xagee ayay garab ka helayaan marka laasacanood waxay garab ka helayaan sideedaba laasacanood way hubaysan tahay way haysteen dawladda Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre xukumi jiray hubkii ay lahayd qabiil walba qayb baa gacanteeda gashay qayb kamid ah hubka beelahan dhulbaanta way haystaan hub kala jira oo markii Khaatumo Taleex lagu asaasay qabaa'ilku soo ibsado loogu talgalay in dalkooda ay ku xoreystaan markii la isku fahmi waayeen qabiil walba hubkiisu haystay hubka qayb kamid ah waxa qaramaysay oo lacag iyo mushaar siin jirtay Somaliland qayb kamidana waxa qaramaysay oo ay ku jireen Puntland qayb kamidana qabaa'ilka haystay ciidamadii Somaliland ku jiray ee beelaha SSC markii gumaadkan jamaahiirtu ay bilaabeen way ka soo baxeen waxay la soo safteen jamaahiirtooda ciidankii Puntland joogay ee ku qaramaystaan Puntlandna waxay ka soo baxeen Puntland waxay ku soo biireen dagaalka ciidankii qabaa'ilku haystayna waxay ku soo biireen dagaalka marka hub ku filan iyo ciidan ku filan SSC iyo Khaatumo way haystaan okay Somaliland waxa ay SSC ku eedeynaysaa in ciidan dawladda federaalka ah ay ka dhex dagaalamayaan goobtaasi sidoo kale
ciidan Puntland ay ka dagaalamayaan Laascaanood sidoo kale al-shabaab ay ka dagaalamayaan halkaasi eedeyntaasi ka odayaashii dhaqanka ee reer Laascaanood sidee u aragtaa marka ugu horeysa arrintaa waxaan u aragnaa odayaasha dhaqanku ma sheegaan waxaan jirin nimankan la yiraahdo Somaliland ama SNM ka dagaalamaysa Laascaanood haddii ay eegaan dadka la dagaalamaya way garan lahaayeen dadka la dagaalamaya laakiin godad bay galaan oo way ka dhuntaan dadka la dagaalamaya yani ma laha awood ay ku eegaan dadka la dagaalamaya maxaa ula jeedaa marka waa jabaanin ama waa fulayaal inamadii ardayda ee jaamacadaha iyo iskuulada dhiganayay ayaa 3 maalmood hore dagaalamayay ma awood uma laha inay eegaan inay ardaydii la dagaalamayso godad bay ku jiraan hadday eegi lahaayeen dadka la dagaalamaya way garan lahaayeen kuway yihiin markuuse ina bixi hadlayay ee uu ka hadlayay meeshan uu ku sheegay madaxtooyadiisa wuxuu yiri way soo socdaan wax loo sheegay garan mayno mana baqayaan isaga afkiisa ka yiri wuxuu afkiisa ka yiri SSC inay naga adkaadaan ayaa nooga wanaagsan inaan isku dhimano wuxuu leeyahay isimadaan ula hadlaynaa nabad baan u galeynaa wafti baan dirayaa aan ka dhaxgalo ereyga madaxweyne Muuse uu isticmaalay oo ah inay naga adkaadaan ayaa inoo wanaagsan intaan isku dhimin lahayn maxaa u fasiratay adiga waxaan u fasilanayaa jahabaabin wuxuu ergan dirayaa karayaal buu soo raray ergadii la sugayay wuxuu ku bedelay karayaal dagaal wuxuu yiri waa xabad joojin midnight-kii buu garaacay inay fulayaal yihiin waxaad ku garanaysaa waqtiga ay siyaan salaada la galay ama fajarka ama salaada duhur jimcaha dagaalka bilaabaan oo yaadaan ka faa'iideysano marka waxaan ku oranayaa hawada u marinayaa dadka idin la dagaalamaya godad ha gelina eega haddii aad eegtaan waad garanaysaa inayood iyo magacyadooda dad dhalay baan nahay qaar ay abtu yihiin baa ku jira annana qaar aan abtu nahay baa ku jira waa la is wada garanayaa inta waxaan leeyahay intaad godada ka soo baxdaan dadka idin la dagaalamaya eega markaad eegtaan baad garanaysaa nin hebel inuu yahay laakiin haddaad god gasho oo hadhowtaada shabaab bay dilay dee weligaaba shabaab bay dilay dheh laakiin waxaanu leenahay ka soo baxa godadka intaa maxaa dheer taariikhda ma jiro ninkii la dagaalamayay ka dhuumanaya oo madfac ku tuuraya dumar iyo caruur yani dhaqanka Soomaalida kuma jirto waa ceeb sidoo kale madfacyada iyo hoobiyaasha hubka culus ee lagu garaacayo Laascaanood waxaa la soo tabinayaa muuqaalada ay arkayaan dadka in la soo bandhiga ay arkayaan waxaa ka mid ah in masaajidadii goobaha caafimaadka la duqeynayo dagaalkaas oo kale maxaad ku tilmaami lahayd dagaalkaas oo kale magac baa loo doonaya hadda magac ayaa loo raadinaya waana lagu raagayaa in magac loo bixiyo waa qoli la ridayo nin god ku jira ridaya ninkii laga dagaalamayna uu hortaagan uu ka dhuumanayaa qoriga wuxuu u ridayaa meeshii magaaladu ahayd iyaga qastigoodu ma aha inay masaajid dumiyaan qastigoodu ma aha inay hadday doonaan dhakhtar dumiyaan qastigoodu waa inay magaalada ku ridaan laakiin hubka la ridayo waxa ay leeyihiin cabir waa in la hago meesha loogu talagalayna la aadiyo soo lama dhihi karo mar haddii hubkaasi uu aadayo masaajidadii iyo caafimaadkii uu aaday waa ku talagal in la burburiyo masaajidadii oo aan dadka aysan halkaa gabaad ku dhiganin sidoo kalena la burburiyo goobaha caafimaadka kii soo dhaawacma la geyn lahaa in la burburiyo soo laysma dhihi karo shaaciyow anigu ciidamada wax baan ka aqaan waan soo maray ciidamada waxay maanta wax la helaan oo xabad la helaan garaadada ugu jecel yihiin iyagu siday u dhaqmaan inay garaadada garaad ka mida wax yeelaan bay ugu jecel yihiin waxay ugu jecel yihiin hogaamiyaasha madaxda ah ee dagaalamaya oo la yaqaano hebel loo yaqaano meelaha joogaan wax la helaan hadday wax hogaaminayaan kuwaasay la doonan lahayn xabadaha iskama khasaareeyeen laakiin xabadaha waxay u ridayaan xagga magaalada way iska ridayaan yacni waxaad arkaysaa 90% xabadahooda waxay ku dhacayaan meelo bannaan hogaamin ma leh hadday hogaaminayaan xarumaha ciidamadu fadhiyaan iyo garaadada ugu jecel waxay joogtaan dhaqankana Soomaalidana waa ka xaaraan annagu hadda waanu isdilayna Soomaha isimadoodu hadday magaalada dhex marayaan oo hebel u garanayno ma dilayno
بعدين أنا سيف كرينا على جيابها وأنا كقبلنا ماشوا أن ملكينه والنظام كصومالي دكتور لقنته لما تابتوا لقنك يجونه واحد تمنية يعني حنا كمان تمت سوق رأي قرأت شاوع قرأت على جوري جيسة لما مرفع بان كل فن بدي يجا تاجر سبع سوق رأي مركا وحو قامنا متشران لكن ويهذيان مركا مساجدك كود عيا دخترك كود عيا عرور بو كود عيا ما لها اتجاه وحاجة ما هذا اللوري وهاجك إن حدي أي سيدا جرتو عاد درينتين إن hubka la iska ridayo looguna talagalay in magaalada lagu burburiyo la dumiyo odayaashii dhaqanka ayaa tihiin qurba joog iyo kuwa gudaha joogo garaadadii dhamaantiin waa iska warhaysaan soo ma wanaagsanaan lahayn intii dadkiina la barakicin lahaa la dili lahaa la dhaawici lahaa magaaladana dhulka lagu dari lahaa in aad tidhaahdaan dagaalkan joojinaynayo sidaas Somaliland ayaan ku raacayna inaad dhahdaan soo kama wanaagsana shaaciyow laascanood hadday dunto oo bannaan noqoto waa bannaan annagu aanu leenahay kumbuleed hadday dunto waa in aqal ka taagnayn waxay noqonaysaa meel bannaan oo annagu leenahay annagu iyadoo bannaan oo cidlaa waanu joogi karnaa waana laascanood laakiin iyagu ma joogi karaan waxaanu ka doorbidaynaa dadkoo qaxa dadkoo dhinto magaaladoo dunta waxaanu ka doorbidaynaa inaanu annagu iyagu kala tagno oo aragga iyaguna kala libdho waxna aanaan wada sheegan waayo sababtoo ah magaca qabiilka iskuma raacno mabaadidana iskuma raacno annagu markaanu daraawiishta ahayn iyagoo ingiriis kala socdaan baro ingiriis bay ahayn markii ay SNM ahaayeen annagu kacaan baanu ahayn kacaanka waxa la yiraahdaa dawladda siyaad bare dadkii la shaqeynayay annagu kacaan baanu ahayn haddeero ay Somaliland yihiin annagu khaatumo ama SSC baanu nahay soo mar walba dad kala duwan ayaa tihiin mar walba dad kala duwan baanu waxaanu leenahay xuduudada dabiiciga oo kala go'an oo la yaqaan simbal hadda si xumaato arintu magaalada burco waqtiga ingiriisku yimi annaga deganoo burco algarba loo oran jiray recordingkii baa yaal annagu inaanu lahayn laakiin iminka waxaanu ka rabnaa meel la yiraahdo credit labida gaatama meel la yahay iminka noo calaamadsan annaga xuduudna marka dadka iyaguna waa kala soocan yahay qabaayil ahaan buu kala soocan yahay Soomaalidu waa qabaayil intii meel isugu timaadaba qabiil bay noqonaysaa laakiin waxba naga dhaxeeya waxa naga dhaxeeya wax la yiraahdo dhaqan iyo macaamilo waanu kala guursanaa dersna waanu isku luqadna waanu ku hadalaa ma goyn karno anagu taa mana xukunno way waarin iska rabaanayo wiilka walaashay baa dhashay aniga ka walaashay baa dhashay kaas waa seedigay kaas waa oogay ma jari karno oo macaamil noocaas ah ma jari karno laakiin wax nidaam oo aan isku dari karnaa ma jiraan afkaaraha iyaga kala duwan waxa uu saldhiga in Soomaaliya ka go'an idinka waxa dhahdeen waxa inoo saldhiga inaan Soomaaliya raacno Soomaaliya annaga leh iyagana waxa ay leeyihiin Soomaaliya ma raacaysaan annaga ayaa naga mitiin annaga ayaa nala jiraysaan soo lama dhihi kara marka laba maroodi meeshay ku dagaalamaan coos ayaa ku baabaa ee soo shacabkii ma baabiinaysan aan taariikhda dib celiyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa ingiriisku offer u keenay arrin u keenay wuxuu ku yiri boqorna noqo dushan aan ka ilaaliyo ciidamadaadii wadankaaga gacan banaano khusuusidii ba marka waxay ku yiraahdeen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan arrintan waa arrin wanaagsan ee adna boqor noqo xukunkan aan haysano dushan ayna ka ilaaliyo sayidku wuxuu ku yiri bari isu keenkeena baridii baa la isku soo noqday wuxuu ku yiri arrintii waan idinka yeelayaa laakiin intaad ingiriiska u tagtaan ka soo dhameeyo inuu muslimo la ya sayidi bay yiraahdeen ma yeelayo inuu muslimo haddaba inagu aanu nasaara noqono muslimka ka baxno sayidi taan ma yeeli karna buu bay yiraahdeen wuxuu ku yiri intay iyagu nasaara yihiin inana aynu muslim nahay ma heshiinayno waayo inana muslimnimo ka tanaasulmayno nasaara noqon mayno yeena nasaara ka tanaasulmayno muslim noqon maayaan ka bacdina sayidkii baa loo sacbeeyo waxa la wad saxan tahay way noo dagaal calankan buluuga Soomaalidu haysato dad lagu qiyaaso 180 ama 200 oo siyaado dad aan nooga dhintay calankan annaga leh ma waxa ula jeedaa dad aan nooga daraawiish koob iyo 20 sano ku dagaalamayni
qof kastoo dhulbahantahay awowga wuxuu ku ilaawaa calanka buluuga markuu calanka arko ayuu wuxuu yiraahdaa awowga Allah u naxariisto waxaan aaminsanahay marka Soomaaliya meeshii aan ku dareemo in laga diidan yahay waan ku dagaalamaya iyaga qura maaha hadday ii suurto gasho kacdoonkan buluuga inaan dib u kiciyo ay oo Soomaaliya wada gaarsiiyaan rabaa iyaguna waxa u go'an in calanka buluuga qofka qaato gubaan markaan aniguna ka dhigto munaarad aan daawado oo ilmahayga ku hago awowga baa u dhintay isaguna qofkii sida ama dilo ama xiro halkaas aanu kala taaganahay dhulay isuguma kayo jiro isku qolana ma nihin waxaanu jecelahay marka inaan istayno kala nasanno sidee xaalku noqonayaa xaalku wuxuu noqonayaa iyaga ku xidhanta annaga nooma xidhna annagu waa idinku xiran tahay waxa dagaalamaya waa idinka oo reer Laascaanood ah oo SSC andhaho iyo Somaliland ayaa dagaalamaya xalka wuxuu ka iman karaa labadiina oo isu imaada sidee marka iskugu iman kartaan oo bulshadii ay u wada badbaadin kartaan waayo aan kugu dare kuwa dagaalamaya ee Somaliland ka soo jeeda ee askarta ah dhimanaya waxa tacsiil looga dhigayaa dhulkaasi iyo dhulka Somaliland kuwa idinka mid ah oo dagaalamaya tacsiil ayaa taalo labada meelba tacsiil ayaa taalo dhib ayaa ka jiro dad is dhalayna way yihiin sidoo marka soo lama doonayo oo ma wanaagsan inaad isku imaataan oo aad xalkii raadisaan oo dhalinyarta dhamaanaya oo dabka aad ku shubaysaan aad ka joojisaan dabka ay ku dhacayaan diinta islaamku ma fideen haddii geeri la diidayo dadkuna muslimiin ma noqdeen dhiigga annaga maanta naga daadinaya waxaanu ku baajinaynaa in wax dambo badan naga sii dhintaan waxaan ku 180 kuma naga dhintay taariikhaha wax ka badan baan diyaar ugu nahay hadda inay ku dhintaan tan isimadayadu waxba may qaldin meel fog may geyn meel gobolka Sool ka mid oo liya og oo laakiin ku jirta aan xuduud aan ka hadlay aan ahayn baa lagu yitaga waa meesha iminka bulshadooda ugu dhaway degaan annagu mas'uul kama nihin waanu abhinni waanu dul qaadanay waanu u samirnay waanu u dul qaadanay wax kasto bilaadanku sameeyo waanu sameeynay wax kastaanu ku kala badbaadno waanu sameeynay saacadan hadda la joogo kuwina dilayay ayaa dagaal ka soo bixiyay waanu joojinaa dagaalku waanu gudbinaa Soomaalinimo kama taganin islaamnimo kama taganin darisnimo kama taganin macruufada naga dhaxaysa kama taganin xididnimo iyo isdhexgal kama taganin wax kasto oo wanaago bilaadan ka dhaxeeya kama taganin laakiin isma qaadan karno waxaan soo qaadan karin hadday caawiyaan Soomaalilandnimo waanu ka tanaasulo Soomaali baanu nahay waanu wada hadli karnaaba marka inta ayaga Somaliland ay yihiin idinkana aad tihiin SSC aad tihiin waxa tihiin dab iyo benziin aan isku soo dhaweyn karin dab iyo benziin la isku dhaweeyay baanu nahay aan la isku soo dhaweyn karin maaha oo la isku soo dhaweeyay dab iyo benziin la isku soo dhaweeyay qarx u sameeyaa say qarx u sameeyaa burco kuma socono hargeysa kuma socono berbera kuma socono hal tuulo ay leeyihiin kuma socono dadka iyaga ah nala jooga dhibtooda ma rabno waxaan ay wataan iyo Soomaali baan ka goonay ma rabno annagu Soomaali baan nahay annagu Soomaali baan nahay ma nihin Somaliland cid aanu ka baryaynaa ma jiro Xasan Sheekh Maxamed Soomaali dawladda federaalka Soomaaliya Soomaha marti uga manihin Soomaalinimada cid marti uga manihin annaga Soomaaliya Soomaaliyana annaga ale Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha laakiin wuxuu madaxweyne ka yahay waxaan anagu leenahay waxaan anagu keensanay ayuu madaxweyne ka yahay inuu noo yimaado inuu wax na taro inuu na taageero inaanu na taageerin ma kala jecelin in kastoo hadaba yiri waa taageerayaa hadlay laakiin waxay u egtahay xibir al waraq wax arabtu tiraahdo khad warqad lagu qoray marka qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday dagaalka Laascaanood ma ahan mid aad ku qanacsan tihiin annaga maaha Soomaali oo dhan baan ku qanacsanay marka maxaa ka doonaysay dawladda Soomaaliya waxaan ku doonayn waxyaabo fara badan Xasan Sheekh Maxamed iyo dawladdu intii hore waxay markasta uga hadlaan heshiiye oo istaaye oo yani waxay uga hadlayaan si maaragtay aan macquul ahayn waxa istilaya waa maxay waxa istilaya nin lacag samaystay oo calan samaystay Soomaaliya ka go'ay iyo nin calan buluug sitolay anu Soomaali baan ahay nin baa ku dhimanaya Soomaali baan ahay madaxtooyadii baad fadhida
maxaa intaa dheer aqalka sare baarlamaanka iyo aqalka hoose baarlamaanka labadaba waxa fadhiya dad dhibaataynaya qarannimada Soomaaliyeed waa kuwa kuwaas waa baarlamaanka federaalka ku jira waqooyi ee Soomaaliland dadka ay ka galay goboladan waa looga shaqayn kari leeyahay adeeg xitaa dawladda looga fidinay cashuur bay qaataan ummadda Soomaaliyeed laga jaro dalka Soomaaliya gudihiisa joogaan waxay taageerayaan maamul go'aansiga madaxweynuhu talaabo uu ka qaadi karaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ka shaqayn lahayaa gudidii golaha baarlamaanku waxay ka shaqayn lahaayeen baarlamaankii kaga jira iyaga aqalkii sare mid baa fadhiyo mooshinadii diidan marka dawladdu yacnaa waxaa la oran karaa 99.9 doorkii lagu lahaa waa ka gaabisa ninka xamar jooga u olanaya goonigosadka okay ka bax fiir madaxtooyada iyo baarlamaanka aad meeshaad goonigosadka u olanayso aad baa ku filan sida ayagaba ay sameeyaan sayagu sameeyaan ma tagi karaan mid kale Hargeysa kuwa Soomaaliland baarlamaanka aqalka sare kaga jira iyo golaha wasiirada ee dadka Soomaalinimada doonaya dhibaataynaya ma tagi karaan Hargeysa wala xidhaya waa hagaag waxaan u soo noqonaynaa Soomaaliland oo soo noqonaynaa qaar kamid ah xildhibaanada Soomaaliland arinta la saanood aad iyo aad ay uga hadlaan waliba si kulul ay uga hadlaan waxa ay is garab taageen dadka la saanood taa idin ma shaafinayso oo ma aragtaan miya baarlamaanka iyo idinka idin taageersan oo ma aragtaan waa runta dad baa hadlay waxa ugu badan ninka la yiraahdo in Abiib Barkad Batuun inankoon laga soo doorto soonaha og laga soo doorto isna mar haddana magaciisa sheegeen qabiilkiisa sheegaya waa nin habaryoonisa oo Saad Yoonis saddex nin oo dhalinyarada musaqafiina oo dhalinyaro wanaagsana ayaa arinka ka hadlay laakiin qaabka ay u hadlayaan waxa way ku saxan yihiin oo waa baarlamaanka Soomaaliland bay ku hadlayaan laakiin waxaad moodaa inay dhaamaan kuwa waaweyn oo meesha fadhiya marka waan u mahad celinayaa adli Soomaalinimay buu hadleen nimanka dhalinyarada waan u mahad celinayaa waxaan leenahay waan idin ognahay waan idin haynaa reer RCC baan nahay reer Khaatumaan nahay maamulka iyagana waan u dhisanaynaa tixgelin iyo sharafti baan idin haynaa waxaan kale ku sheegayaa qof kasto Soomaaliya oo kelmad noo yiraahda waa recording adduunyadu sidii hore maaha adigu soo iminka wareysiga ma qaadaysid wareysigan aad iga qaadayso recording buu ku noqonaya waayo waxaad iga gudbinaysaa wixii aan aaminsanaa ninka leeyahay Cabdullaahi Balwaan baan u mahadnaqaynaa kabtan Ayuub baan u mahadnaqaynaa waxaan YouTubers badan baan u mahadnaqaynaa shacabka Soomaaliyeed baan u mahadnaqaynaa dhammaan dhalinyarada beelaha Soomaalida waxaan u mahadnaqaynaa beeshaawiye oo si gobolada ay degaan iyo deegaanadoodaba kacdoonka ka taageeray waxaanu leenahay waa dad Soomaalinimadu ku fogtahay beeshaawiye wad mahadsantii baan leenahay waanu idin ognahay waa insha Allah yoomka ay noqoto waanu idin abaal marin doonaa dalka yagana Soomaali baa leh kamana sheegan doono Soomaali waxaan ku darsanayaa kale dad baan nala ka masaafuriyay reer koonfur galbeeda way qoran yihiin dawaa magacyay leeyihiin guryahay deganayeen waa la yaqaanaa magaalada ku dhasheen markaanu maamulka dhisno oo ka saarno nimankan waanu invite gareynayna waanu u yeereynaa waxayna noqon doonaan dad wadanka dega oo ka codeeya oo xuquuq ku yeesho especially dadkii ku dhashay golaheeda deegaanka inay ka mid noqdaan baanu mustaqbalka rajaynaynaa dadkaana waanu yeeranaynaa dalka yaga Soomaali baa leh deegaanka waanu degannahay Soomaali baa leh annaguna meel kastoo Soomaali degan tahay haddaanu nahay beesha waanu joognaa markaanu joognaan cid marto kuma nino annagaa leh marka annagu Soomaali baan dagaalkan maalin walba wuu sii socdaa wuu sii dheeraanaya isbuucii labaad ayaa lagu jiraa hadda waliba gabagaba sii maraya dhiig baana maalin walba daadanaya sidee dhiigan lagu joojin karaa labadan SSC iyo Somaliland ay ku wada noqon karaan laba maalmul ama dad isla socda oo heshiisa nabad wala qaatay qaabka ay magaalada u duqeynayaan ama u duminayaan rajo kama sii qabaan inaan wax wadaagno ama isxukunno ama wada joogno laakiin waxay rabaan inay khasaaraha magaalada badiyaan
laakiin waxaan u sheegayaa burciya hargeysaa dumi doona iyagaana dumin doona annagu dumin mayno iyagaa duminaya maanta bishu waa 19 waana February waana 2023 arrintaa meel ku qor burciya hargeysaa laascood say u dumiyeen bay u duminayaan annaguna dumin mayno iyagaa duminaya waxayna u duminayaan fashilka ku jira iyo xaqdarrada ayaa duminaya dagaalkan aan ku soo haray annagu shuhadaa baanu nahay qofkii naga dhintaana dhulka iyagu ku aasmaya qofka iyaga noolaadaana dhulka iyagu kor joogaya laakiin waxaan u ballan qaadayaa haddii ay ka bixi waayaan inay idaacadaha BBC-da ka raadin doonaan markii ugu dambeysay laascaanood buu joogay dad badan oo yimi iminkaba 40 ay aasan waayeen oo ka carareen baanu sheewal ku aasnaa dadkii ay ka dhasheen way raadin doonaan dadkii ay dadkaas ka dhasheen way raadin doonaan daadiisu intaasay jirtay cimrigaasu jiray sidaas uu ekaa cidii aragtay markii noogu dambeysay laascaanood buu joogay dad idaacadaha laga baafin jiray ma maqli jirtay dadka wax baafin doona dabcan waxay noqon doonaan waalidiintii dhalay hadda maxaa ugu baaqaysaa waalid hadda waxaan ugu baaqayaa haddaad muslim tihiin haddaad shahaadataan haddaad soomaalinimo iyo damiir leedihiin dhulka iyaga nooga taga caruurtiina wata annagu mujaahidiin baanu nahay annagu caruurtayda qoryaanu u iibinayna way dagaalamayaan markay dhintaanna waanu aasanaynaa ma maydhno mana kafanno mana oyno mana tacsiyadayno waa mujaahid waanu aasnaa wasalaamu calaykum xataa isuma tacsiyadayno go-aan baanu gaadhnay haddaad hadhowna soo weydiin doontaan markuu igu day laascood buu joogay wiil sidaa u ego maydkiisa meel ma ku sheegtaan dhakhtarrada iyada baaran doontaan iyadaan cidi joogin hadda gaxaysta weliba waxaanu idin siinaynaa oo aanu simada idinka dhammaynaynaa 7 maalmood oo xabad joojin aad ku tagtaan haddaad tegaysaan haddii aad idinku badan tahay 15 casho xabad joojin aad ku baxdaan baanu idin siinaynaa haddaad muslimiin tihiin oo shahaadataan na dhaafa kala dhimanay iyaynaan isku dhiman muuse bixi madaxweynaha somaliland ma dariiq saxsan ayuu u wadaa ama ku wadaa mise dariiq khaldan ayuu ku wadaa somaliland horta marka hore madaxweynaha oran kulli madaxweynaha la doortay weeyaan way ka dhamaatay ma madaxweyne waa loo doortay nidaamkaas isdoorashadooda way isku doorteen say isku doortaan way isku doorteen November bay ka dhamaatay madaxweyne maaha wuxuu rabaa dhiigga caruurtan beelaha isaaq inuu la socod ku soo joogo yaa dagaal baan ku jiraa ilaan doorasha laga rabaa hadduu dagaal gali waaye caruurtan dhimanaysa meesha ku sii fadhiya marka madaxweyne maaha marka su'aasheedii dariiq saxsan miyuu ku wadaa Somaliland mise wuxuu ku wadaa dariiq khaldan haddaan dariiq sax ku wado beelaha garxis maanta kama baxeen hadduu dariiq saxan ku wado buur madow daraad kama daba hadleen hadduu dariiq saxan ku wado dhibaatadan iminka taagnimo taagnaateen wuxuu ku leeyahay waa ninka ku qudbadeeyay reer laascaanood maxay dhimashada uga godoodayaan burciya hargeysa iyo ceergaaba waa lagu dhintaay annaga qura maaha dhibaatadu iyagu ku hayaa dhibaatada annagu waaba ka fogna laakiin iyagu ku hayaa baayaxu sharig baa caawa ka xidhan hudheeladii baan caawa ciiseexan madaarkii baa xidhan oon safar marin horta iyaga iyo annaga yaa liita maanta shacabkoodii taxiga la raaco iyagaa lahaa marka madaarka laga raaciyo dollar buu qaadanayay madaarka lacag buu ku qaadanayay hudheelada lacag buu ku qaadanayay suuqa lacag baa laga iibsanayay caawa maxaa ka jira hargeysa dadka iyaga qaxootiga daafaha magaalada jooga iyo dadka hargeysa gudaha ku jira waa isku mid guryihi kira male oo waa looga baxay hudheeladii kira male wuu baabiyey madaxweyne maaha way og yihiin wuxuu ka dhuumaalaysanayaa oo dagaalkan kusii dheeraysanayaa haddii waddanka dagaal ku jira xisbiyada siyaasadda maalinta uu u yeeray ciro iyo ina cali waraabe waxay ku yaayeen doorashada waqtigeedii qabo si wax xal looga gaaro kabacdi wuxuu doorashada madax martay ka taga iyagoo xalisan bay ka soo baxeen maxaad ku leedahay shacabka Somaliland waxaan ku leeyahay ilaahay idin naxariisto oo ducaynaya iyagu ma dhibaateena ma dagaalamayaan waxaan leeyahay allah idin naxariisto dhibaatada ilaahay idin ka dulqaado qofkan habaarana la idin soo habaarina ilaahay meel ha idin dhaafiyo waxaan leenahay inagu kala tagnaye tashada oo ninkan iska qabta
dad Soomaaliyeed banu meel kala tegi mayno waxayna haraaye ninkan iska qabto tashada intaa baan ku oranaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamuud Cabdullah ee loo yaqaano Cubuli oo kamid ah odayaasha SSC ee ku nool magaalada Columbus Ohio oo istuudiyaha shaaciye magaalada Columbus uu ku leeyahay uu nagu soo booqday intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh